ehelada mukhtaar roobo cali ku-xigeenkii hore ururka al-shabaab oo muddo 3 sana u xirnaa dowladda soomaaliya ayaa beeniyey hadal ka soo baxay kusima agaasimaha hay-adda niisa gaashaanla sare yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin farey. hadalka ehelada ayaa ka dambeeyey markii xalay kusimaha hay-adda niisa yaasiin farey uu soo saaray qoraal uu kaga hadlaya xaaladda xarigga ee mukhtaar roobo. yaasiin farey waxa uu ku sheegay qoraalkaas in roobo uu degan yahay guri uu amnigiisu sugan yahay islamarkaana ay qaabilsan yihiin ciidamo si gaara u xaqiijinaya amnigiisa iyo midka hoyga uu degan yahay. waxa uu ku sheegay qoraalkaasi oo kale kusimaha hay-adda niisa inay si joogto ah ugu yimaadaan soona booqdaan qoyskiisa, xaaskiisa iyo ciddii kale uu dalbado. waxa uu sheegay oo kale yaasiin farey inuu caafimaad qabo mukhtaar roobo uuna leeyahay dhakhaatiir si joogto ah ula socota xaaladiisa caafimaad. waxa uu sheegay in hoyga uu degan yahay uu yaallo qalabka lagu jimicsado islamarkaana uu yahay arday dhigta jaamacadda heerka 2 ee masteriska, xiriir joogto ahna uu la leeyahay macallimiintiisa. waxa uu sheegay oo kale in mukhtaar roobo noloshiisa ay bil walba hay-adda niisa uga baxdo lacag dhan $7,000. waxa uu intaas ku daray mukhtaar roobo uu isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya balse aanu buuxin shuruudihiisa soo dhiiba laga rabay. haddaba ehelada mukhtaar roobo ayaa ka jawaabay hadalka ka soo baxay kusimaha hay-adda niisa yaasiin farey. ibraahim roobo cali waxay walaalan yihiin mukhtaar roobo. warqaddu run ma ka sheegaysaa xaaladda nololeed ee mukhtaar roobo? maya, sababtale way ka been sheegaysaa. waxaanan ka ogeynay ka sheegaysaa inuu sheekh mukhtaar inuu xuquuqdii uu maxabuuska lahaa uu laayahay inuu sheegay baa VOAda ka maqalnay noogu wardambeysay. ehelaa meesha gala ayaa ehelkaa meesha u fasaxan ayaa ku qoran, waa been laga been sheegay. xaasaskiisa u taga ayaa ku qoran, waa beenna laga been sheegay ehel ahaan oo dhibana haddaan nahayn haddana nagu sii been abuuranahay. waa gartay. waxay ku sheegeen warqadda kusimaha taliyaha nabad sugidda waxa uu ku sheegay inuu caafimaad qabo, guri amni uu degan yahay, ciidamo ay ilaaliyaan, ciddii doonta ay soo booqato, ehelkiisa, xaaskiisa iyo ciddii kale uu dalbado, jaamacad uu dhigto, macallimiintiisa uu la xiriiro, qalab jimicsi ay u yaalaan, lacag $7,000 ay uga baxdo hay-adda nabad sugidda niisa bil walba. jawaabtaada? jawaabteeda waxay tahay horta anaga lama xiriirno, mana noo ogolo haddaa ehelkiina ay farqada koowaad ee warqadda waa in xaasaskiisna ay u tagaan, ehelidiisna ay soo booqdaan, qofka uu dalbadana loo geeyo. intaas oo dhan waxba kama jiraan. haddii aan usoo gudbo ehel kale haddii uu leeyahay hadday u yaqaanaan, anaga taas ma naqaan. ehelkii annagaa ah, gabdhihiina way joogaan, waa la hadli karaa, ayagana waa markhaati nool. fariin intuu noo soo dirsado qaxwadii ay iga dhamaatay iyo shaahii ay iga dhamaaday uusana dhihi lahayn haddii lacag uu haysto. arrinta lacagta haddii aan sii faahfaahiyana waxaan codsan lahaa in wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda amniga oo hay-adda budgetkada toos u hoostago ay hubiso waxaan meeshan laga sheegayo, ay dabagal ku samayso, baaritaan lagu sameeyo, la xaqiijiyo sheekh mukhtaar oo dhibana ah in haddana madaxiisa 7,000 ku bixinaa lagu siicno. waxay nagu tahay fajac. waxyaabaha aan la yaabnay oo aan ku qasbanaanay inaanan ka aamusi karin ay tan ka mid tahay. su-aasha meesha ku jirta iyagu muujinaya waxa weye ninkan inuu ka tirsanaa urur al-shabaab la yidhaahdo oo aan u kala aaba yeelin dadka ay laynayaan. maxaan ku idhahdaa inkastuu isagu sheegay inuu kasoo goostay, haddana iyagu halkaasay maaragtay ku salaynayaan maadaama ururkaan uu ka ahaa hogaamiye ku-xigeen. haarunow aan dib ku yara celiyo iyo ogolow, waa run inuu urur ka al-shabaab uu ka tirsanaa. wax qarsoon ma aha, isagana muusan qarinin. wax qarsoon ma aha. duruufihii ay ku kala tegeen, sababihii ay ku kala tegeen, mowqifkiisa maanta iyo maraykankii lacagta saaray siduu ugu qaaday iyo dowladda Soomaaliyeed siduu wadahadal ula galay. wadahadalkaas ugu yimid, madaxweynihii soo dhaweeyey, jimco waliba madaxweynaha la tukanayo oo la qadaynayay, golihii wasiirada ay statement ay kasoo saareen oo soo dhaweeyeen, oo wasiirkii engineer Yariso oo la hawnaaraysa markaas golaha wasiirada wasiirka warfaafinta ahaay siduu uga hadlay, iyo in afiskii madaxweynaha uu ka faa'iideystay oo ku yimid, la soo dhaweeyey, gaadiid la siiyey, ciidan la siiyey, staff la siiyey, baasaboor diblomaasiya la siiyey, safaro dibadda uu galayay, xajka 2 marna soo cimraysay, marna soo xajiyey, safaro kale oo caalami ahna uu galay, madaxa adduunyada la ballamay la kulmayay. haddii shuruudaha uusan buuxinin, maxaa loo siiyey baasaboor diblomaasiya? maxaa loo siiyey? maxaa doorasho loogu diray koonfur galbeed loogu diray? maxaa guddigii doorashada halkaas doorashada ka qabanaya shahaadadii musharaxnimada ay u guddoonsiiyeen? markaas maxaa jiri? su-aasha aan qabno. dusan shuruudda maxaa intaasoo dokumenti ah lagu siiyey?
taas macnaheedu waxay dhaawacaysaa madax banaanida iyo aaminaada lagu qabi karo diblomaasiga Soomaaliga ah ay dhaawacaysaa. markaas dawladdu waa inay kala saartaa diblomaasiyadeena iyo baasaboorradeena diblomaasiga lama aamini karo dadaan shuruudii soo dhiibiyaasha buuxinaa haysta ay leeyihiinna hanoo sheegaan haddii saas maahan ay leeyihiin ha kala saarta dawladda. warqadda kusimaha agaasimaha niisa ayaa ka dambeysay warqad uu qoray shalay wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka dalbanaya kusimaha hay'adda niisa inuu warbixin buuxda ka keeno xaaladda xariga Mukhtaar Roobow muddo 48 saacadood ah. wasiirka ayaa qoraalka uu diray waxa uu ku sheegay inay la soo xiriireen ehelada iyo wakiilada Mukhtaar Roobow ayna ka walaacsan yihiin xaaladiisa caafimaad iyo badqabkiisa. waxa uu sheegay wasiirku in eheladiisu ay doonayaan inuu Mukhtaar Roobow u helo cadaalad maadaama uu muddo dheer xirnaa. waraysi aan la yeeshay Mukhtaar Roobow bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay ayuu ku sheegay inuu yahay maxbuus siyaasadeed. waxaa kaloo waraysigaas uu kaga hadlay xaaladiisa nololeed. niman baa ay soo afduubtay oo ashkhaas ah 2018 bishii 12 ayaa la soo afduubtay ilaa iyo hadda ayaan u afduubanahay aan telefoon la ogolayn oo xuquuqdeedii asaasiga ahayd la ogolayn wax kastoo bani aadan ha u lahaa aan la ogolayn marka taasaa kaliftay intaan noolahay oon wax dhihi karoon fursadaan helo inaan sheego waxa meesha ka jiro xaaladda aan ku suganahay iyo cidda sababtay xaaladaas. waaye bal wax nooga sheegtaa marka hore amnigaaga iyo noloshaadu waa sidee ma sugan yihiin? ammaanka inta iyo tan noloshaba ma ku dhihi karo way sugan yihiin kuma dhihi karo oo ma ku dhihi karo. Mukhtaar Roobow ayaa ku jiray gacanta dawladda Soomaaliya tan iyo bishii December 2018 markaasi oo laga hor istaagay inuu u tartamo madaxtinimada maamul goboleedka Koonfur Galbeed. ehelada Mukhtaar Roobow waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin in mas'uuliyiinta dawladda federaalku ay rasmi ahaan u xaqiijiyeen inay gacanta ku hayaan Mukhtaar Roobow. waxaan ku faraxsanahay warqadaas noo muujisay waa warqadii ugu horeysa ee shakhsi xil haya ka soo baxdo oo cadeynaysa in Sheekh Mukhtaar oo fiyo oo caafimaad qabo oo jaamacad dhigta oo jiim dhigta oo lacag qaata oo badan in isaga uu haayo qiraaya inaan maqalno waan ku faraxsanahay oo shakhsi aan maanta ku ogna Soomaalina hana la ogaato ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisana hana la ogaadaan taas. Mukhtaar Roobow ayaa ka soo goostay ururka Al-Shabaab sanadkii 2017 markaas oo dagaal ay dhex mareen ciidamadiisa iyo kuwa ururka Al-Shabaab. warbixintaasi waxaana la socodsiinayay wariyaha VOA Haarun Macruuf.